27kii bishan ayaa magaalada Viernheim ee gobolka Hessen dadka dukaamaysanayay goob supermarket waxay booliska ku wargeliyeen in aan la garanayn uu dhex fadhiyo gaari ay wateen. Ninkan ayaana diidanay inuu gaariga ka degto. Abbaare 6:45 galabnimo ayaa gaari roonda oo ciidamada booliska ee Jarmalku soo gaadhay goobta oo dhex joogay wiil Soomaaliya oo muuqday mid kacsan. waxaana boolisku isku dayeen inay wiilkan dejiyaan wayna u suurtageli weyday. wiilkan ayaa markii dambe ka dhufsaday budh ay wateen laba ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Jarmalka oo goobta soo gaadhay, wuxuuna gaadhsiiyey garaafooyin. labada askari ayaa dib uga istaagay markii dambe wiilka, iyadoo dadka ku soo xoomay goobta ay dib uga celinayeen. waana markii dambe goobta soo gaadhay ciidamo kale oo gurmada, waxayna gacanta ku dhigeen wiilkii Soomaaliga ahaa oo dhiigga ka qaadeen kadib markii ay u caddaatay inay ka muuqato astaamo muujinaya inuu daroogo isticmaalay. baaritaan kadibna waxaa loo qaaday xarunta lagu daaweeyay dadka dhimirka ka xanuunsan, isagoo loo haysto hadda inuu weeraray saraakiisha laamaha ammaanka sida uu sheegay sarkaal u hadlay ciidamada booliska ee magaalada Mannheim. haddaba arrinka la yaab kale ayaa ah in haweeneyda fiidiyogan duubaysay oo afka Jarmalka ugu hadlaysay sida lahjada dadka Yurubta bari ayaa waxay ku hadaaqaysay erayo isirnacayb iyo cunfi uu ka buuxo oo maxkamad lagu soo taagi karo haddii jaaliyadaha Soomaalida ee dalka Jarmalku ay dacwad ku furaan. erayada isticmaashay ayaa waxaa ka mid ahaa daawada jiirkan madow ee uskaga sida ka muuqata fiidiyogan marka aad daawato oo aad u naxdin badan. So, das ist gerade bei uns beim Aldi. Guck mal diese Ratte an. Guck mal diese verfickte Ratte an, diese schwarze, dreckige Ratte. Guck mal. Ich bin gerade beim Aldi. Ich hoffe, die knallen ihn ab. Guck mal. Schwarze Ratte.